سيجبا أنا uga mahadcelinaya dadaalkooda ku aadan asaaska iyo hirgelinta hay'adan muhiimka ah taas oo ujeedooyinkeeda ay qeexayaan ama ay ka mid yihiin inay nidaamiso qaab hawleedka mihnada xirfadlayaasha xisaabaadka ee wadanka inay hubiso raacidda sharciga iyo dhowrista anshaxa wanaagsan ee dhammaan mihnadlayaasha xisaabaadka inay kormeerto oo ay la socoto habdhaqanka xirfadlayaasha xisaabaadka inay hormariso xirfadda xisaabaadka iyadoo la sameynayo cilmi baaris natiijadeeda la baahinayo lana ansixinayo hirgelinta iyo asaaska hay'adda xirfadlayaasha xisaabaadka ee SIGBA waxa ay muhiim u tahay hal abuurka ganacsiga joogteyntiisa horumarka dhaqaalaha iyo ka hortagga qataraha maaliyadeed ee sii kordhaya adduunka oo dhan ku wajahan shirkadaha iyo shakhsiyaadka maalgashadayaasha ah ama maalgashanaya kuwaas oo u baahan xirfadlayaal tayo sare leh oo maamula ama hubiya xaaladaha maaliyadeed si waafaqsan shuruucda iyo heerarka caalamiga ah dhinaca waajibaadka xirfadlayaasha xisaabaadka ee la aqoonsan yahay waxay kaalin muhiim ah ka qaataan wada howlgalka nidaamka maaliyadeed ama financial ecosystem iyagoo gacan ka geysanaya hagaajinta kaalinta maaliyadeed ee shirkadaha iyo hay'adaha waxa ay bixinayaan adeegyo hanti dhowris iyo talooyin ku saabsan hoggaansanaanta shuruucda canshuuraha iyo dakhligada taas oo xoojinaysa kalsoonida iyo hufnaanta xogaha maaliyadeed ee ganacsiga iyo hay'adaha dhaqaalaha ee wadanka markaan u imaado kaalinta xafiiska hantidhowrka guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxa aan u aragnaa in hirgelinta hay'adan SIGBA ay tahay tallaabo muhiim ah oo sare u qaadaysa hufnaanta iyo isla xisaabtanka taasi waxa ay si gaar ah muhiim ugu tahay hirgelinta waajibaadka xafiiska hantidhowrka guud oo ay ka mid yihiin hubinta fulinta mabaadi'da dowlad wanaagga ka hortagga si xun u adeegsiga hantida dowladda iyo barayfadkaba iyo xaqiijinta in dakhliga dowladda si buuxda ugu dhaco qasnada dowladda xirfadlayaasha la aqoonsan yahay ee SIGBA waxay kaalin muuqata ka geysan doonaan haddii Ilaahay idmo xaqiijinta howlahaas muhiimka u ah qaranka iyada oo taas laga ambaqaadayo istiraatiijiyadda xafiiska hantidhowrka guud ee 2023-2027 waxay diiradda saaraysaa taageeridda iyo galeelidda SIGBA si ay uga qayb qaadato horumarinta xirfadaha xisaabiyaasha Soomaaliya waxaan filaynaa in hay'adan ay awood u yeelan doonto inay soo saarto xirfadlayaal tayo sare leh oo kaalin mug leh ku yeelan doona horumarinta hufnaanta hay'adaha ganacsiga iyo hubinta bixinta canshuuraha ku waajiba shirkadaha ganacsiga si waafaqsan sharciga shirkadaha Soomaaliya sharci lambar 18 December 2019 mudanayaal iyo marwooyin dhismaha iyo hirgelinta hay'adan waxa ay lafdhabar u tahay sare u qaadista xasiloonida dhaqaale iyo horumarinta xirfadda xisaabaadka ee dalka waxa tusaale ku filan in dhowr iyo 40 dal oo kamid ah 54 dal ee qaaradda Afrika ay leeyihiin hay'adan xirfadlayaasha xisaabaadka ee la aqoonsan yahay ama CBA sidaas darteed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan wasaaradda maaliyadda baarlamaanka iyo golaha wasiirada in si loo xoojiyo sharciyadda aqoonta iyo waay aragnimada hay'adan si ay uga mid noqoto hindisaha horumarinta mihnada Afrikaanka ee loo soo gaabiyo API ama African Professionalism Initiatives oo uu hogaaminayo ururka AFRSAI ee ay ku midaysan yihiin hay'adaha hantidhowrka adduunka hay'adaha hantidhowrka ee Afrika ee ku hadla afka Ingiriiska hirgelinta hay'adan waxa ay sidoo kale fursad u tahay in dhaqaalaha ku baxa adeegyada hantidhowrista ee ay fuliyaan shirkadaha shisheeye oo gaaraya ku dhawaad nus milyan labadii sano ee la soo dhaafay tusaale ahaan
uu dalka ku soo noqdo loogana faa'iideeyo xirfadlayaasha maxalliga ah ama muwaadiniinta. gunaanadkii waxa aan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan ku booriyo madaxda joogta munaasabadan ee ka tirsan xukuumadda iyo baarlamaanka, si gaar ahna u xasuusiyo wasaaradda maaliyadda inay dhiirigeliyaan dadaalada dhismaha iyo horumarinta xirfadlayaasha xisaabaadka ee la aqoonsan yahay ee Soomaaliya, iyada oo ay tahay guul weyn in hindisa sharciyeedka lagu aasaasay hay'addan SIGBA uu maray kana gudbay nidaamka xeer curinta iyo dejinta ee waddanka ama xukuumadda iyo baarlamaanka, isla markaana uu sugayo saxiixa madaxweynaha. waa mahadsantihiin. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa sharcigana in la saxiixo wixii ka dhimanna la dhammaystiro. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.